dhan waa kor fadhiya gadaashay haddaan ka tagoon meel aadan dhar soo dhaqi lahaa intay qallashay daroogada ka dhe gurigaan ku xira ma qabi deer mali deerka waa iga dunsaya deerka waa iga dunsan yahay waxaana istamalaa walaalayga muslimiinta isbitaalay u baahan tahay waxaa laydhahay isbitaal haddii la geeyo way raysan lahayd neerfaayo dhabarkay waxgaayo dhabarka isbitaal haddii la geeyo way raysan leedahay walaalayga muslimiinta waxaan ka codsanayaan gabadha inay isbitaal ila geeyaan kuwa kale ii nooleeyaan waxaan ka codsanayaa walaalayga muslimiinta muslimiina adinkaan in la dhashay ninkan alla dhashay aniga waxaadiyaan joogaa waxay caawiya malaaniga waan rafaadsanahay walaalayga muslimiinta dariskayga unbaa iyoog dhibkaan qaba ayaga unbaa maxaan guraaya wax yaro ii aruuriyaanan ku noolahay ayagana qaxooti waa i qof waxay siiya malaa walaalayga muslimiinta waxaan inka codsanaya dhibka maandeeyaysa inaad ilan garab qabatiin gabadha isbitaal igala quusiya ilmaha sagaanta lila caawiya la isaacidayo walaalayga muslimiinta waxaan idinka codsanaya inaad i caawisiin guri mali gogol mali saligaasaan ku fadhiyaan habeenka ku saaciya waxba ma haysta walaalayga muslimiinta waxaan idinka codsanaya isbitaal noolal gogol guri inkastaba walaalayo adinkaan inkaga fadhiya walaalayga muslimiinta oo codsiyaan wadaa codsiga iga qaabila walaalayga muslimiinta codsiga iga qaabila aniga waa xanuunsanay neefaan qabaa ma shaqaysan kara kama tagi kara islaanka haddaan naga tagaanaysi fiiriyadha 20 sanay jirtaa 20 sano waxay caawiyay malaa xarooyinkan waxaan ula imaadinay isbitaal isbitaal waxay dheheen ayalaa qarash uma hayna adiga walaalayga muslimiinta oo gacantiina waxay ku jiraan u baahana ninka waxay ku sadaqaysan karo islaam aan u baahanahay walaalayga